madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa safarkoodii ugu horeeyay maanta waxay ugu anbabaxeen wadanka Mareykanka waxaana la sheegay madaxweynuhu inuu la kulmi doono mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Mareykanka iyo xarumo lagu sameeyay cilmi baarista oo ku yaala wadanka Mareykanka oo kaga qayb gali doono doodo Maxamed Cumar Cabdi Cirro oo kamid ah tifaftirayaasha telefishinka Nisa ayaa stuudiyaha igula sugan maxamed ilaa hadda maxaa intaasi dheer laga og yahay safarka madaxweynaha boosho waruntayo safar madaxweynaha iyo wafdi balaano hogaaminaya maanta ayay u bixeen ama galabta ayay u bixeen Mareykanka safarkiisa ilaa iyo mataqana hore ayaa loo soo ogay ilaa bilo ka hor ama 2 bilood bil ka hor meelaha oo kadib markii uu wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland uu golaha wakiilada ka hor sheegay in madaxweynuhu uu bartamaha bisha March ama bishan ku jirno uu ku tagi doono safar ugu bixi doono Mareykanka marka ilaa intii xilliga ka dambeysay aad ba safarka madaxweynaha loo hadalhayay safarkan ugu dambeyntii maanta ayuu baxay wax inta badan oo ama xog dheeraad oo faahfaahsan oo ama dawladdu si rasmi uga hadashay ama oo looga hadlay oo ma ogin ama ma hayno hase yeeshee waxaan ognahay uun safarkaasi in madaxweynuhu u baxay isagoo hogaaminaya wafdi balaaran oo ka kooban xubnaha golaha wasiirada ah xubno isku jira ganacsato dad matalaya bulshada rayidka ah marka waa wafdi dhinac siyaasadeed iyo mataqana dhinacii deegaanka iyo dhinacii ganacsiga isku jira marka loo eego mataqana miqyaaska ma laga qaato dadka madaxweynaha safarka ku weelinaya waxyaabaha ugu muhiimsan ee mataqana madaxweynaha safarkiisa la socda waxa kamid ah wasiirka deegaanka oo kale oo dhawaan wasaaraddaasi magacii laga bedelay isla markaana laga dhigay wasaaradda deegaanka iyo arrimaha isbeddelka cimilada iyadoo aan ognahay xilligan in isbeddelka cimiladu aad uga taagan tahay adduunka oo mataqana ay tahay mawduucyada ugu waaweyn ee mataqana laga wada hadlo ama Afrika laga maalgelinayo marka waxaan oran karnaa waa safar ku soo beegmay xilliga lagu talagalay gaar ahaan marka loo eego arrimaha siyaasadda arrimaha ganacsiga arrimaha deegaanka marka kulli waan ogaan doonaa markuu madaxweynuhu halka gaaro cidda uu la kulmo iyo shirarka uu yeesho iyo natiijada ka soo baxda waan ogaan doonaa hase yeeshee waxaan ognahay in wafdiga madaxweynuhu uu baxay Mareykanka ku sii waajahan yahay isla markaana halkaasi looga diyaar garoobay si loo soo dhaweyn lahaa iyadoo uu ka sii horeeyo wafdiga walxaad oo wasiirka arrimaha dibadda uu kamid yahay oo ugu horeeyo oo iyaguna hore u sii tagay Mareykanka isla markaana halka ku sugan marka bal waan ogaan doonaa markuu madaxweynuhu halka gaaro cidda uu la kulmo iyo mataqana kulamada uu yeeshay inay soo baxdaba Cirro maxaa la filan karaa oo la isoo karaa waqtigani waxa ku soo beegay in madaxweynuhu safarkiisii ugu horeeyay ku tago Mareykanka madaxweynaha Soomaaliland tan iyo intii uu xilka la wareegay bishii December 13keedii sanadkii 2017 waxaan oran karnaa dalal badan oo Afrika iyo Asia gaar ahaan bariga dhexe oo Imaaraadka iyo Sacuudiga kamid yihiin buu safar ugu baxay inta badan safarkiisa waxay badnaayeen dalalka Afrika hase yeeshee dalalka reer galbeedka ee Yurub iyo Mareykanka waa safarkii ugu horeeyay oo uu baxo madaxweynuhu gaar ahaan waqooyiga Ameerika marka waxaan oran karnaa xilligan arrimo badan baa taagan oo ka taagan adduunka oo ku soo beegmay xilligan gaar ahaan isbedelada ka socda geeska Afrika iyo looladamada dalalkan waaweyn ee mataqana gaar ahaan Mareykanka iyo Shiinaha iyo Turkiga oo kale iyo oo aad ugu loolamay arrimaha geeska Afrika gaar ahaan loolanka ugu weyn wuxuu ka dhex taagan yahay China iyo mataqana iyo Mareykanka iyadoo ognahay in xilligan Chinahu ama Shiinuhu uu mataqana qabsaday inta badan dalalka Afrika gaar ahaan dalalka Soomaaliland ku hareeraysan ee geeska Afrika sida Djibouti oo kale Ethiopia oo kale Kenya oo kale Soomaaliya oo kale oo maalgashiyo waaweyn iyo mashaariic waaweyn ka wado marka waa safar aan oran karno wuxuu ku soo beegmay xilli uu ama arrimo istiraatiiji ah ama arrimo waaweyn oo loolan ka socdaan geeska Afrika iyadoo aan ognahay in Mareykankuna uu danaynayo inuu geeska Afrika iyo Afrikaba guud ahaanba uu ka soo ceshido saameyntii uu ku lahaa oo imika u muuqatay inuu si qacan galayso dhinaca maxaan ku leeyahay Shiinaha gaar ahaan geeska Afrika oo kale Djibouti uu Mareykanku ku leeyahay saldhig weyn oo saldhigiisa ugu weyn oo Afrika ka maamulo waxa kale oo aan ognahay in China saldhigiisa koobaad ee ka baxsan meel dalkiisa ka baxsan uu ku leeyahay adduunka Djibouti ka furtay marka maadaama oo Djibouti iyo Mareykankii ama taqana Djibouti u sii janjeedo ama u sii qacan galiso dhinacii Shiinaha oo maalgashi badan ka fuliyay waa qorshayaal Mareykanku wuxuu doonayaa meelo kale oo uga bedesho mataqana Djibouti oo kale Eritrea oo kale uu doonayay mar inuu wareego gaar ahaan dhinaca Soomaaliland kale hadalada sheegaya inuu doonayo uu soo wareego marka kulli isbedeladan ka socda geeska Afrika ayuu baa qayb ka ah safarka xilligan ku soo beegay madaxweynaha iyadoo sidoo kalena uu safarkan ku soo beegmay xilli kale oo mataqana inta arrimiga geeska Afrika la iloobay ama Afrika la iloobay lagu mashquulsan yahay xilligan dagaalkan ka socda Ukraine oo galay maalintiisii 16aad ku jira caawa ama hadda uu noqonay maalintii 17aad marka maadaama oo adduunkii oo dhani gaar ahaan reer galbeedkii iyo Yurub oo dhani ay ku foogan yihiin ama indhahooga iyo dhagahooga ku jeedaan dhinacii Ukraine iyo cunaqabataamaha dagaalka ka dhanka Ruushka
kulli waxa laga yaabaa arrimahaas ma kusoo beegmay safarkan madaxweynaha hase yeeshee waynu ogaan doonaa bal wixii ka soo baxay natiijada madaxweynaha. marka saadaalin laga bixiyo maxay tahay faa'iidada Somaliland ugu jirta safarka madaxweynaha iyo wafdigiisu ay ugu baxeen Mareykanka? intaan ka ognahay intii ay qabsatay xukuumadda kulmiye talada dalka la wareegtay wixii ka dambeeyay sanadkii 2010 waxaad moodaa in ay xukuumadda kulmiye ama madaxweynahan imika iyo madaxweynihii ka horeeyay ee kulmiyeba ay qaateen istiraatiijiyad ah in ay qaabkii hore ee loo raadin jiray ictiraafka Somaliland wax ka bedelaan qaabkii xukuumadihii hore u raadin jiray ictiraafka oo markaa waxaad moodaa in xukuumadda kulmiye ay qaatay istiraatiijiyad ah inay iibiso locationka ama boqcadan ay Somaliland ku taalo inay ka iibiso adduunka in adduunka la yeelato macaamil mataqaanaa ganacsi ama maalgashi ama dhaqaale oo ay Somaliland maadaama oo hore ictiraafkii mataqaanaa awal dawladihii hore qaabkii ictiraafku raadin jireen wax badan natiijo badan laga keeni waayay imika in la yiraahdo mataqaanaa Somaliland waxay haysataa kheyraadka noocaas haysataa waxay haysataa shidaal bay haysataa waxay haysataa xeeb dheer bay haysataa waa dal amaana waa dal ku yaala goob istiraatiijiya marka Somaliland waxay iibinaysaa boqoradan ay ku taalo ay adduunka iibinaysaa marka waxay doonaysaa ama ay qaateen xukuumadaha kulmiye ay qaateen siyaasad ah adduunka waxa la qaybsado marka lama oran karo in Somaliland ba wax ka faa'iidi karta hase yeeshee Somaliland waxay soo bandhigi kartaa danaha uu Mareykanku ka faa'iidi karo isaga laftiisu uu Somaliland ka faa'iidi karto xilal la yeesho iyadoo oo horena aanu sheegnay oo ama wasiirka arrimaha dibadda waraysiyo siiyay uu soo bandhigay waxyaabaha Mareykanka ama xukuumadda Mareykanka faa'iido u ah xilal Somaliland isagoo sheegay in Somaliland ay tahay ay noqon karto saaxiib mataqaanaa weyn oo Mareykanka ku yeelan karo geeska Afrika oo ku taala maadaama ku taalo boqol istiraatiijiya isla markaan loolan badan ka taagan seen hore soo sheegnay marka kulliba Somaliland waxay ku xidhnaanaysaa in qaabka ay u iibiso istiraatiijiyadan iyo mataqaanaa qorshayaasheeda arrimaha dibadda si u iibiso ay ku xidhnaan doontaa kulliba waxa la oran karaa waa safar ku soo beegmay xilli muhiim ah waa safar ku soo beegmay xilli mataqaanaa arrimo badan ka taagan yihiin adduunka gaar ahaan geeska Afrika waa safar ku soo beegmay xilli ay Somaliland doonayso inay isku dhigto inay tahay dal ku yaala goob istiraatiiji ah oo adduunka wax la qaybsan kara isla markaana cid kasta oo mataqaanaa qaatay siyaasad furfuran oo ah inay danaha adduunka inay mataqaanaa hirdamiyo kula macaamilaan maxaan ku dhahay qaab dhexdhexaadnimo ah oo iyadoo mataqaanaa Somaliland qaatay siyaasad ah in kolba ciddii mataqaanaa danaheega fulisa ama haddii noqoto aqoonsata ama jeclaatay in si toos oo la macaamisho ay Somaliland xiriir la yeelanayso iyadoo cid kasta u furtay albaabadeeda marka waa qayb ka mid ah mataqaanaa loolamada ay Somaliland ku jirtay doonayso inay kusoo jiidato quwadaha waaweyn ee adduunka iyadoo ka iibinaysa mataqaanaa goobaha ku taalo marka Somaliland waxay ka faa'iidi kartaa kow inay indhaha caalamka gaar ahaan Mareykanka ay ku soo jeediso Somaliland in siyaasadihii Mareykanka ee hore mataqaanaa ay ula macaamili jirtay geeska Afrika gaar ahaan Somaliland iyo Soomaaliya oo mataqaanaa intii ka horeysay xilligii madaxweyne Obama ka hor ay kulli macaamil wax loo oran jiray mataqaanaa dual track policy ama siyaasad isbarba socoto Somaliland iyo Soomaaliya si gaar ah ula kala macaamili jireen taasoo ka baxday markii ay dawladda Mareykanku gaar ahaan xilligii madaxweyne Obama ee ahayd xogayaha arrimaha dibadda Hillary Clinton xilligii Soomaaliya loo aqoonsanayay tahay dawlad rasmi ah aqoonsiga rasmiga la siiyay wixii intaa ka dambeeyay waxaad moodaysaa Mareykanku inuu jinjeeray ama siyaasadiisu u jinjeeray ama reer galbeedka dhanbe u jinjeersamay xagga Soomaaliya oo heshay aqoonsi caalami ka heshay adduunka isla markaana meeqaamka ay ku lahayd caalamka inkastoo ay dawlad ahaan si adag dawlad ahaan u dhisan haddana siyaasadihii oo dhan ba isbedelo xaggii Soomaaliya loo jinjeersamay marka waxa laga yaabaa in arrimahaasi ay Mareykanku xilligan wax ka bedelo iyadoo aan ognahay in wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka gaar ahaan waaxda arrimaha dibadda ay dhawaan soo saartay in ay saarayso cunaqabatayn ku soo rogayso mataqaanaa hogaamiyaasha siyaasadda ee Soomaaliya kadib markii dib u dhacyo badan ku yimaadeen doorashooyinkii dalka Soomaaliya ka qabsamay doorashooyinka tooska ahayn oo dhowr jeer oo muddo oo loo qabtay ay ku fuli waayeen hore waxaa lagu qabtay 15 bishii February in ugu dambeyn arrimaha doorashooyinka Soomaaliya lagu soo afjaro lagu soo dhameysmo hase yeeshee markii arrimahaasi dib u dhac ku yimid Mareykanku wuxuu soo saaray in uu ku soo rogay cunaqabatayn mataqaanaa in hogaamiyaasha siyaasadda Soomaaliya inkasta oo aan la magacaabin shakhsiyaadka lagu soo rogayo marka waxay muujinaysaa tani maadaama oo Somaliland aan ahayn dal ilaa imika la aqoonsan yahay hase yeeshee mataqaanaa ay tahay dal qiyaas ahaan ama jiritaan ahaan ka duwan Soomaaliya waxaan ognahay iyadoo Mareykanku uu sheegay inuu Soomaaliya madaxda ku soo rogay cunaqabatayn in maanta wafdigii reer Somaliland ay ku baxeen mataqaanaa ay u baxeen Mareykanka oo waliba fiisiyaashii mataqaanaa lagu siiyay baasaboorka Somaliland oo ay baasaboorka Soomaaliya ku dhoofeen dhammaantood marka waa siyaasad uu qaatay Mareykanku oo ah inuu Soomaaliya ula macaamilayo sidii laba dhinac oo kala duwan maadaama oo iyadu Somaliland ay tahay dal mataqaanaa dimuqraadiya doorashooyin badan soo qabsatay waliba doorashadii u dambeysay aad loogu amaanay iyadoo aan ognahay in warbixinaha ay soo saaraan macaadada caalamiga ah gaar ahaan macaadada qiimeeya arrimaha dimuqraadiyadda iyo xorriyadda qowlka iyo sida macadka loo yaqaano Freedom House oo dhawaan soo saaray warbixin sanadeedkiisii uu ku sheegay in Somaliland tahay dalalka
mataqaanaa marka loo eego kobaca mataqaanaa kobaca xuquuqaha siyaasiga ah dalalka ugu waaweyn ee mataqaanaa ama kobaca ugu badan uu ku yimid xitaa Mareykanka ayay ka hormartay marka loo eego kobaca ku yimid xagga xuquuqaha siyaasiga ah iyadoo arrimahaas lagu qiimeeyay doorashadii aynu qabsanay xagga xorriyadda qowlka inkastoo Somaliland lagu qiimeeyay dalalka partial waxa loo yaqaan partially ama qayb ahaan xuquuqaha sida buuxda u haysta laakiin haddana waxay ku calaamadsantahay inay tahay dalalka geeska Afrika iyo bariga Afrika oo ugu xuquuqaha badan xagga xorriyadda marka loo eego xorriyadaha asaasiga iyo xorriyadaha siyaasiga marka arrimahaasi ay Soomaaliya iibin kartaa wana arrimaha soo jeedan kara indhaha Mareykanka dul hadha hagaag maaha markii ugu horeysay madaxweyne Somaliland uu safar ku tago Mareykanka maxaa safarkan kaga duwan yahay kuwii madaxdii hore Somaliland ay ku tageen dalkaas oo run oo maaha safarkii ugu horeeyay madaxweyne ka socda Somaliland oo ku tago Mareykanka madaxweynayaashii hore oo dhan way ku tageen laga soo bilaabo cigaal ilaa mataqaanaa Daahir Riyaale ilaa maxaan ku leeyahay Siiraanyo hore ay ugu tageen safarro kala duwan dalka Mareykanka hase yeeshee waxaan oran karnaa safarkan uu ku tagay maanta madaxweynaha Somaliland uu ku tagay Mareykanka safarada hore waxyaabo badan buu kaga duwan yahay wuxuu safarkan kusoo beegmayaa xilli ay Somaliland ku leedahay saaxiibo badan mataqaanaa golayaasha Mareykanka gaar ahaan golaha Senate-ka ama golaha Congress-ka ama guud ahaan si guud ahaan aqalkan baarlamaanka Mareykanka Capitol Hill-ka ay saaxiibo badan ku leedahay iyadoo aan ognahay in dhawaan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Mareykanka gaar ahaan golaha Senate-ku ay soo saareen ama ay soo jeediyeen mooshin ah in Somaliland iyo mataqaanaa Somaliland ay Mareykanku la yeesho mataqaanaa cilaaqaad dhinaca xiriirka difaaca ah gaar ahaan xagga amniga oo kale mooshinkaasoo ahaa in mataqaanaa wax ka bedel lagu sameeyay xeerkan mataqaanaa amniga xeerkan mataqaanaa difaaca Mareykanka in uu ku cadaadinayo in Somaliland in wasaaradda difaaca Mareykanku ay xiriir toos la yeelato Somaliland dhinaca ammaanka oo kale waxaana mooshinkaasi soo jeediyay oo mataqaanaa dhowr jeer saxaafadda la hadlay baarlamaanka hor akhriyay nin xildhibaana oo la yiraahdo James Rich oo golaha Senate-ka waa ragga ugu muddada dheer ee mataqaanaa muddo dheer ku jiray golaha ama guddiga arrimaha dibadda ee aqalka Senate-ka waxa kale uu soo beegmaya xilli diblomaasiyiinta Mareykanka gaar ahaan dadka ka soo shaqeeyay arrimaha dibadda gaar ahaan si gaar ah soo qaadana mataqaanaa kaaliyaasha xogayaha arrimaha dibadda oo qaabsan arrimaha Afrika sida kaaliyihii ugu dambeeyay xogayaha arrimaha dibadda ee Afrika oo qaabilsanaa xilligii mataqaanaa uu madaxweynaha hore Mareykanka mataqaanaa Donald Trump haystay siyaasiga diblomaasiga loo yaqaano mataqaanaa Tibor Nachi oo isaguna qoraalo badan oo uu sameeyay ku sheegay in Somaliland ay u qalanto inay xiriir toos la yeelato Mareykanka sidoo kale waxaan ognahay in xogiyihii hore ee arrimaha dibadda kaaliyihii xogaha arrimaha dibadda u qaabsanaa Mareykanka xilligii Daahir Riyaale Somaliland safar ku timid gabadh loo oran jiray Fraser iyaduna dhowr jeer waxay sheegtay inay ka qoomameynayso in xilligii ay xilka haysay aanay si cad uga hawlgalin qadiyadda Somaliland marka safarkan wuxuu ku soo beegmay xilli siyaasadda arrimaha dibadda Mareykanka ay Somaliland ku leedahay saaxiibo badan sidoo kalena golayaasha Mareykanka looga taliyo gaar ahaan golaha Senate-ka iyo golaha Congress kalena ay saaxiibo badan ku leedahay waxa kale oo ku soo beegmay xilli hay'adahan mataqaanaa ama macaadadan think tank loo yaqaano ama sameeyo ololayaasha Mareykanka mataqaanaa galanka badan u leh mataqaanaa hay'adaha Mareykanka sida macadkan loo yaqaano maxaan ku raay heritage oo kale uu soo saaro warbixino uu ku cadaadin dawladda Mareykanka mataqaanaa in Somaliland si toos loo aqoonsado waana macadka inta badan la sheego mataqaanaa la sheegay in uftiga Somaliland u fiiday martaqaadka isla markaana madaxweynuhu ka jeedin doono mataqaanaa khudbad ama ka qayb gala doodo dibad laga hadlay arrimaha Somaliland marka safarada hore wuxuu ka duwan yahay safarkan wuxuu ku soo beegmay xilli ay Somaliland saaxiibo badan ku leedahay golayaasha Mareykanka xilliga hore mataqaanaa wufuuda hore ay tagi jireen saaxiibadan oo kale ma jirin Ingiriiska oo kale ayay Somaliland muddo dheer ku lahayd baarlamaanka Ingiriiska ku lahayd saaxiibo ama xildhibaano saaxiibo la Somaliland oo qadiyad Somaliland aad uga shaqeyn jiray hase yeeshee waxa moodaa markan inuu yahay markii ugu badnaa ee Mareykanku ama golayaashiisu ay Somaliland ku yeelato dad mataqaanaa ku jira golayaasha qaranka gaar ahaan baarlamaanka oo kale siyaasadda arrimaha dibadda ka soo shaqeeyay diblomaasiyiin caalamiya oo kuwaasoo mataqaanaa ka shaqeynaya mataqaanaa qadiyadda Somaliland kuwaasoo laga yaabo kulmi in wafdiga madaxweynaha ay la kulmaan marka arrimahaasi ayuu ka duwan yahay safarkan safarada hore ay ugu tagtay madaxda Somaliland aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay daawadayaalkaasi waxa uu ahaa Maxamed Cumar Cabdi Ciro oo kamid ah tifaftireyaasha telefishinka Nisaab waxaana martii uu ku ahaa falanqaynta warka